Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada habeen wanaagsan maalin wanaagsan hadba kaa idin tahay insha Allah maanta waxaan isla eegi doonaa qayb ka mid ah programming languageska aad muhiim u ah waxay noqon doontaa programming languageskaas faraha badan ama ka mid ah programming languageska leh iyo waxyaabaha loo isticmaalo mid walba haddii aan nahay Soomaalida badan si dib leh uma galno oo waan iska baranaa maanta qofkeena Java u yaqaana C++ u yaqaana Python u yaqaana laakiin badankan laga yaabee isticmaalka dhabta ee meelaha laga isticmaalayo waxyaabo loo isticmaalo inuusan aqoonin marka waa muhiim taas ayaan isla eegi doonaa insha Allah way badan yihiin oo series u noqon doona waxaan ku bilaabaynaa Python oo qaybta koowaad ah waxaan rajaynayaa muuqaalka dib inaan wax aan ka faa'iido doono waxaan isla eegi doonaa waa maxay Python maxaa sidaan caan ugu tahay halkee sidee iyo halkeed ka baran kartaa sideed u baran kartaa yacni iyo halkeed ka baran kartaa maxaa loo isticmaalaa Python yaa isticmaalo qaar ka mid ah softwareda ama website ama application caan ee Python lagu sameeyay ama isticmaala iyo bonuska Python waa integrated high level or general purpose integrated that means waa la turjumaa koodka sidii just like English iyo Arabic programming languages kala waa inay tahay integrated and translated marka la waa objective kooda la abuur doono koodka marka la raan garay oo machine code ayaa la abuur doona kaasoo qofka bini'aadamka uusan fahmi karin like Python si toos ayaa loo turjumi doona waa high level language that means qof bini'aadamka ayaa fahmi kara oo wax isla wada fahmi kara waa general purpose wax walba ayaa loo isticmaali karaa Python oo hal meel ku xadidin ma ahan isticmaalkeedu uu badan yahay waan arki doonaa insha Allah waxay ku dhisan tahay qaab object oriented web ah oo taas oo ka dhigan inay leedahay inheritance iyo classes ay leedahay waana waxaan loogu talagalay oo qofka programmerka inuu ku qoro code oo clear ah caadi loo fahmi karo iyo logical code that means wax oo logic la fahmi karaasan iyo ha ahaadaan codekaasi small project ama large scale oo project waaweyn ama kuwa yaryar ninkaas la Guido van Rossum oo Hollandees ah ayaa Python develop gareeyay wuxuuna shaqada bilaabay dhamaadkii 1980 wuxuuna ugu talagalay programming languages su'aagaas caan ahayd oo la dhihi jiray ABC programming inay bedel ay u noqoto version-keedii ugu horeeyay Python 0.9.0 dhahay waxay soo baxday 1991 version-kii labaad oo in badan oo horumar lagu sameeyay oo Python 2 dhahay asna wuxuu soo baxay 2000 iyo version-ka ugu caansan ee hadda la isticmaalo inkastoo wax badan ay raaceen Python 3 lah asna wuxuu soo baxay 2008 kaasoo luqadin isbedel badan ku sameeyay waan Python waxa la programming language ku caansan ay ku jirtaa maxaa sidaan caan ugu tahay ayadana qodobadan ayaa sabab u ah inay sidaan caan ay noqoto marka hore waa simple syntax-keeda qaabka ay u qormayso waa mid iska fudud Python code waa iska easy laha qof walbana waa uu fahmi karaa wuuna akhrin karaa oo English based camal waa ayada dhan waa versatile that means isticmaalkeeda meelaha loo isticmaali karaa ayaa badan efficient oo wax walbana way ku habboon tahay waana reliable mid isku xallin kara beginner friendly waa la hadlaa iswa jaamacadaha marka aad semester koowaad Python ayaa lagu qaataa oo ayada lagu bilaabaa waana ilinka laga soo gala programming languageska ama computer science waa open source oo qof walba ayaa Python wax ka bedelan kara marka aan leenahay open source maanta hadii aad Microsoft Office Word isticmaalaysid wax ka bedeli kartid hada just on geli waa user baad tahay laakiin Python adigoo user ah hadii xariif aad ku noqotid ayaa developer noqon kartaa oo wax ku soo kordhin kartaa ama update ku sameyn kartaa waxay leedahay libraries fara badan oo Python ay dhanba muujilo libraries oo hadii aad u baahatid just soo import gareynaysa kadibna aad isticmaalaysaa simple waxay leedahay strong supportive community oo Python hadii maanta error yar uu ku qabsado qadkaas ayaad gelaysaa kumanaan xal ayaad helaysaa oo kala duwan boqolaal waana sidoo kale taabgeliyaal way leedahay oo hadaba halkeed ka baran kartaa Python waxaad ka baran kartaa website-yada kuwa soo socda sida Udemy oo lacag ka soo iibsanaysa koorsooyin lacag ku wada jiro python.org website-ka waa caansan ee isla website-ka Python ee official-ka ah code
Coursera, W3 School oo wada naqaan tutorials point iyo hackering waxyaalahaas ayaad ka baran kartaa Python website-yadaas iyo kuwa kale fara badanba. YouTube channels haddii aan soo qaadan ayagana freecodecamp.org gaas iyo programming with Mosh iyo Traverse Media meelahaas ayaad ka baran kartaa ayadana. buugagta ayagana haddii aan soo qaadana mid kuwa caansan oo Learn Python the Hard Way ayaa jira, kuwa kale fara badan ayagana waa jiraan. Haddaba sidaad u baran kartaa Python waxaa la marka hore wax walba marka aad baranaysid hadaf inaad ka leedahay waa figure out hadafka aad waxaad ka leedahay aad u baranaysid ee ku dhiirigelinaya waxa inaad baratid iyo sababta aad u baranaysid horta ogow. kadib waxaa la basic iyo baro oo la sida basic ku kuwan soo saacamin syntax iyo inaad taqaanid variable data taabida ay leedahay operatorada loops oo for loop iyo waxyaabo inaad taqaanid conditions oo if iyo switch iyo inaad taqaanid lists inaad taqaanid oo array u dhiganta functionada ay leedahay ha ahaadaan built-in ama user defined exception handling dictionaries file operator string operator string operator libraries kala duwan sidaas step by step. kadibna project ku bilaw maxaa la programming languages hal shuruud ay leeyihiin oo ah programming language marka aad barato salaam C ahaad Python ahaad mid doonta ahaad C++ waa inaad project ku sameysaa haddii kale maadan barin projectdaasna marka la sameynayo dadka in badan qaladka ay galaan waxay meel weyn inay ka bilaabaan program weyn inay soo qabsadaan ha sameeyeen intaas wax yar saacad calculator waxaas camalka bilaab meel hoose kadibna mar walba weynii project mid ka dambeeyay midkii ka hor ka sii weyn ilaa marka dambe aad gaartid website ama application aan inaad soo qabsatid oo kale aad ku sameysid. waxaa la practice haddii aadan practice badan aan sameynin application marka aad qabanaysid 3 jeer 4 jeer hal application inaad ku celiso si aad u fahanto lastly maxaa la qofka programmerka maalin walba waa uu yaraan 30 daqiiqo inuu u jiraa every day 30 daqiiqo oo code bis wax la uu programming wax kale uusan qabanaynin inuu leeyahay. kadibna Python sida hore soo sheegnay meelaha loo isticmaalo waxaa soo badan yihiin kadibna midka aad Python qaybta aad rabto dooro hore inuu sii socdo project-ka iyo waxa ku sii wada ilaa marka dambe aad gaartid haddii aad awoodid waxay leedahay open source projects fara badan kuwaas inaad wax ku darsatid. maxaa loo isticmaalaa Python waa halkii aan u soo soconay ugu muhiimsanayd. Python waxaa loo isticmaalaa marka hore AI oo ah artificial intelligence albaabiyas iyo wishashkaas automatic isku furaya AI way Python oo lagu programmiyaa machine learning ayadana haddii aad haysato smartphone aad iPhone Android wuxuu doonay wajigaada ayaad ku xirataa sax wajigaadaas hadhow markaad saa u qabatid kaamirada dhac uu ku furmo waxaas maxaa keenay wajigaada la baray. AI machine learning waxa la markaan in sawir badan kala duwan la soo qaado waxay doonaha ahaadeen machine telephone computer program code loo qoray la baray waxaan sawiradan iyo magacyada in la isku baray hadhow waxaas uu aqoonsado AI learning la waxaa jira mid kale ayadana mobile apps waa lagu sameeyaa Python ka faraha badan ha ahaadaan noocay doonaan Android ama mobile apps kala duwan sida Android ha ahaado ama ha ahaadee iPhone iska waa lagu sameeyaa Python. desktop apps waa lagu sameeyaa Python ayadana oo kala duwan. desktop app marka aan leenahay minus one computer ku jira application ka meesha baa lagu isticmaali karaa haddii aan la saarin network oo organization uusan ahayn. waxaa kaloo jira ayadana caan lagu sameeyaa web applicationada kala duwan iyo website-yada waa lagu sameeyaa Python oo waxay leedahay package dhan library caan ah oo Django laha iyo Flask ay leedahay Python. game development waa lagu sameeyaa even libraries loo talagalay ayaa jira. sidoo kale waxaa lagu sameeyaa data analytics marka aan leenahay tusaale camal ka soo qaado waxaad rabtaa meel inaad ka furtid goob ganacsi goobtaas ganacsi inta aadan furin waa inaad meesha tagtaa soo indhaysaa wax walba meeshaas ka jira waxyaabaha aad geysay waxyaabo loo baahan yahay waxyaabo meesha ru inaad soo ogaataa that is data analytics waa analyze gareynaysaa taxliilin hadii kale. data visualization ayana waa data aad soo heshay inaad u muujisaa qaab graph ah
graphic camal inaa muujisaa budget iyo line jetka kala duwanaya camal waxyaalahaas excelka waa caan ku yahay. Data science waa labadii finqo hadda laisku soo qabtay oo that means data analytics iyo data visualization waa part of data science, qayb data science ka mid ah oo ayadana waxaa loo isticmaalaa datadaas kala duwan ama xogtaas aad soo aruurisay, qaabka xogtaas aad soo aruurin lahayd, analyze gareyn lahayd, waxaas dhan that means Python waa kaa caawinaya. waxyaabahaas oo dhan waa loo isticmaali karaa. sidoo kale waxaa aad loo isticmaali karaa finance oo Python waxaa caan ku tahay in lagu sameeyo e-commerce marka aan leenahay meelahaas xisaabaad iyo math fara badan ayaa jira ama business applicationada caadiga ka duwan yihiin aydan waa loo isticmaalaa Python. waxaa sidoo kale loo isticmaalaa space science ama cilmiga spaceka hawada sare aydan Python waa loo isticmaalaa oo waxyaaba automation robotics waxyaaba shaqada qabanaya dhan Python waa lagu programmiyay aydan. Python sidoo kale waxaa loo isticmaalaa SEO ama search engine optimization oo ah Google-ka waxyaaba caanka ay ku yihiin oo marka adiga wax aad search garaysid waxyaabihii adiga aad u baahneed iyo waxyaaba la xiriira dhan in lagu soo qabto. iyo sidoo kale designada kala duwan ayadana Python oo lagu sameeyaa oo webka lagu design gareeyaa saa hore aan usoo sheegnay. waxaan isleeyahay markaan hadda ayadana sidoo kale qayb kale muhiim ah oo ah software ama website ama application mid doona ha aadan oo caan ah kuwaas oo lagu sameeyay Python ama Python isticmaalo. waxa uu caansan ugu horeey Google. saa hore usoo sheegnay Google marka aad wax search garaysid wixii adiga aad u baahneed waxyaaba la xiriiri oo qaab badan oo kala duwan loo search gareeyaa jira. haddii caadi oo search garaysid laakiin wixii adiga aad rabtay iyo waxyaaba la xiriir dhan ayaa lagu soo qaban doonaa. taasna waxaa ka saacidaysa Python. YouTube ka aad galaysa muuqaaladaas kala duwan aad daawanaysid waxaa kuu suuragelinaya Python inaad muuqaal aad ka fiirsatid YouTube. Python ayaa kuu suuragelinaya. sidoo kale Instagram-ka muuqaalada ama sawirada waxaa ka fiirsanaysid zaid ayay ugu isticmaalaan Python aydan. Facebook waa kan maalgeliyaha koowaad sida aan hore usoo sheegnay Python-ka zaid ayuu isticmaalaa. Amazon aydan sidoo kale waa isticmaashaa oo aydan waxyaaba automation ku dhacay dhan oo scriptyadaas dhan Python ayaa ka saaciday. Netflix aydan sidoo kale muuqaaladii waxyaabaas in la daawado Python ayaa suuragelinaysa. Quora website-kaas caanka ah su'aalaha iyo jawaabaha aydan Python ayuu ku tiirsan yahay. waa website caan ah oo su'aalo iyo jawaabo bis ku caan ah. Pinterest asana waa website kale oo waxyaabaha designada kala duwan iyo waxyaaba adiga aad xiisaysid interestiga ah ayaad account samaysanaysaa. waxyaabahaas ayaa lagu soo bandhigi doonaa sida sawirada, animationska, oraahida, waxyaabahaas ayuu ku caan yahay. website-kan kale oo Dropbox lahay waa cloud storage service ama oo cloud oo waxyaaba ku keysan kartid sida Google Photos ka camal u shaqeeya inkastoo uu lacag yahay ka duwan yahay. asana waa isticmaala Python. Uber shirkadda tagaasida caanta aydan waa isticmaashaa Python taas oo automation-ka ayuu ka saaciday aydan. Reddit website asana oo waxyaabaha memeska iyo waxyaabaha shaqada camal asana ku soo bandhigi weyn uu isticmaalaa. Bitbucket waa asana GitHub code repository oo asana meel oo koodka waxyaabahaas lagu kaydsado qayb GitHub ka mid ah oo aad iibsanaysid aydan waa isticmaashaa Python-ta. waxaa sidoo kale isticmaala website oo Instacart lahaa asana wuxuu ka shaqeeyaa inta badan dhankaas iyo Mareykanka iyo Canada aydan sax uu ka shaqeeyaa oo website asana uu ku caan ah marka groceries ama qudaarta waxyaabahaas marka aad iibsatid gurigaada kugu keenay. Yahoo shirkadda caanka ah ee Gmail-ka Hotmail-ka u tirtami jirtay aydan way isticmaashaa. Bitly website-kan lahaa asana oo URL shortener leh oo yacni soo qaad qof ayaad link u diri rabtaa ama website linkigiisa ama URL-kiisa. URL-kaasna aad ayuu u dheeryahay oo waxaa laga yaabaa hal leen camal inuu yahay ama wax badan. website-kan ayaa tagaysaa simply meel oo wuxuu leeyahay user interface oo aad u fudud. meeshaas ayaad ku base gareynaysaa waa lagu soo gaabinaa oo waxa laga dhigi doonaa wax yar. website-kaas Bitly lahaa zaid ayuu isticmaalaa markaan Python. marka haddii aan inta iska soo gudubnay waxaan isla soo aragnay waxyaabaha aan ka dhigay meelaha ka baran karto sidaad u baran karto shirkadaha isticmaala Python. aan soo aragnay waxyaabaha loo isticmaalo Python. haddaba maxaa xiga? su-aashaani marka adiga ayay ku taalaa
wax walba oo informationkii aan islahaa inta muhiim ahayd haddii aad soo aragtay marka go-aanka aad qaadan lahayd weeye waa halkani. go-aankaasna kolleyba waa adiga iyo sida aad u aragtid. laakiin waxaan ku darsanaa hal mid, waxyaabaha marka website waxa uu caansanaadeen aan soo sheegay oo faraha badnaa ama youtubeyas marka aad tagtid waxaa ku jira programming languages fara badan. saan hore usoo sheegin, marka haddii aadan hadaf lahayn waxaan cad halkan aad u imaatay, waxaa macquul ah inaad halkaas hadhow aad ku dhex luntid oo iska dhex yaacdid. laakiin marka aad leedahay hadaf, wixii aad meeshan u timaaday waa taqaanaa oo si toos ah ayaad u raaci doontaa. okay, intaas ayaan ugu bixinaa maanta actually. laakiin intaan ka bixin, saa hore usoo sheegnay, Python waa kuwa ugu caansan programming languageska 2021 hadda aan marayna kuwa ugu caansan ayay ku jirtaa, weliba kaalinta 2aad ayay ku jirtaa. okay, haddaba yaa ku jira marka koowaad? su-aashaasna adinka ayaan idin daynaya. sidoo kale soo comment garee ama soo qor hadba programming languageskaas aan hore usoo sheegnay mid series ayaan ka dhigi doonaa, midda xigta ee aad jeclaan lahayd inaan galno iyo sidii aad u aragtay si guud. wassalaamu calaykum.